asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan si kastood iid maqlaysaan iyo meel kastoo joogtaanba, walaaladeedii waa barnaamij gaar ah oo ku salaysan xaadisooyinka u dambeysay hadda ka dhacay waddankan deganahay ama dhashka lagu magacaabo. runtii walaalo badan dhowr marar waxay soo weydiiyaan, waxay yidhaahdaan maxaad niyo uga soo hadli weysay siyaasaddii, maxaad u yeeli siyaasadda inta badan zamankan waxaa is leedahay dadka siyaasadda wadaba intii waaleed unbaa dadka horboodaysa. ummadda intay dhegeysato inta caafimaadka qabta maahan aab is leedahay. marka saas daraaddeed waxaan iska jeclaystay maadaama gaargaar walaalaha ila soo xiriiraan in si guud aan fariinta bal waxyaalaha jiray aan ka dabageeyo. saa la socotaan burburkii kabineedka kadib waraysiyo gaar ayuu ninkan bixiyey odaga ah oo lagu magacaabo kherad wilders oo ah bartay frexiga ama xisbiga b v v hogaamiya, runtii ahna toyada kaamara ka tirsan aqalka hoose. marka waxaan rabaa dhowr arrimood inoo kala qaado. wilders wuxuu sameeyaa badanaa midio la hadlaa, erayo iska tuuraa sida trump oo kale. wax badan oo kala sameeya trump, hadaladiisa waa iska delqaaf, xoogaa waxyar waxaa ku jiro kicin dadka oo ah in ajnabiga ay wadankii qaadanayaan. waa sax, xisbiga midigta fog oo nationalism waa yahay oo far right. marka waa nin muwaadin dhaj ah. waa nin dhaj ah, xaq uu leeyahay aragtidiisaas inuu asay gudbisado maadaama baarlamentariya. laakiin waxyaalo badan aan kusoo kala qaadan. qodobka ugu gooyo wuxuu ka hadlay wilders bariscood uu sameynaa tuname moroccanista morator in netherland. ereygaas markuu dhahaya cajiib way. haddaa hoos usoo degtaa halkan haddaa usoo degto waxaad ku arkaysaa waktiga uu dhahayay. macnaha wuxuu leeyahay dhalinyarada moroccan, wuxuu ka wadaa samara la joogaa, temperatureka waa 30 ilaa 35. marka dhalinyarada moroccaanka ah magaalada rabaad waxay tahay yiri 29 ilaa 30 sida qoraalka ku cad. journaalka marka kasoo qaat brooks karanta kasoo qaatay. laakiin dhalinyarada waxay suubinayaan yiri temperaturkooda halkan ay gelinayaan, dhaqaale iska qaadanayaan. adiga waa iska critigo, inkastoo dadka walaalaheena moroccaanka dad shaqaysto oo wax barta u badan yihiin, ummadda dad fiican iyo dad xub way leeyihiin. marka aad bay isu hayaan iyaga. waayo qodobkaas halkaasaan uga gudbay insha allah. kulli joornaaladan kasoo qaatay qofku wax akrin karo, clipka hoostiisaan gelin doonaa insha allah, referency meeshaan ka keen. haddaan ku xijiyo sawirada meeshan kaaga muuqda, dabcan waxaad arkaysaa waa kabineedkii ama dowladdii lagu magacaabayo dig schoif oo prime ministerka waddanka ah. waa ninkaa halkan taagan falaartan ku fiiqaayo. ninkaas waa ra-iisul wasaaraha waddanka oo xilkiisa dhammaaday. dowladdiisii meeqay jirtay? waxay jirtay, waxaa la aasaasay dowladnimada 2 July 2000 iyo 2 Yuli 2024. kabineedkaas marka waxaa member ka ahay b v v oo ninkaa odayga mas-uulka yahay, oo sawirada intusi doono dadka mas-uulka ah. v v d n s a iyo b b intaasaa dhistay. laakiin ilaa goormay jirtay? 3 June 3 Juni ay ku ekeed, ama 3 June 2025 ama 3 Juni 2025 ku ekeed. dowladdaas marka waa dhacday. maxaa jira marka? intaas kadib shaqo badanaa la qabtay, sharciyaa la barboos garay oo hore laiskugu haayay. sharciyada way la wadaagi doonaa. sharciyo aada u saameynaya waa qaxootiga. waxaan rabaa dadka sharciyadaas inta badan barboos gareeye sawirkoodana kula gabadhan lagu magacaabo oo minister vonka ah oo muna kaiser la dhaho, iyo gabadhan kale oo halkaa sare taagan, iyadana waxaa lagu magacaabaa mariolina fiver oo khaldalandarka ah, statekaana degana. minister waxaa waaye azil and immigrasi waa iyadana wasiirka ahayd. marka dowladda hadday dhacday maxaa dhacaya? waxaa la geliyey marka in
doorashadii howl baa loo tartamaya imaan doonta. Marka ninkan odaga marka kabineetkiisii waa dhacay, maxaa dhacaya marka kabineet iskhifaalen vad gaat er gebeuren, maxaa dhici doona, waxa dhacay waa dhaceen. Marka waxaa dhacay dhowr arrimood oo muhiim ah, intaasay la wadaagaysaa. Horta dadkay ka kooban yihiin waa intaan, qolooyinku ka kooban yahay ninka odaga waa intaan, baarlamaanka ama kabineetka saddexdan qolaa marka hore dhisatay, kabacdi ninkan ra-iisul wasaaraha afartan kooxood. waa la iskhilaafay marka 150 kuraasuu ka kooban yahay, waa la iskhilaafay, waa lagu kala tegey. waxaa la yidhi arrimo badanaa laisku qabtay, laakiin waxaa nasiib daraa arrimihii badnaay oo laisku qabtay qaar ka mid ah ayaa gabadhan ogolaatay iyo xisbiye kale, inta kale waa diideen, labadan gabdhood kale waa ka baxeen. marka waxaa muhiim ah runtii waxaa muhiima maxaa marka cusub oo soo kordhay. waxaa soo kordhay waxyaalaha soo kordhay waxaa ka mid ah in status howdarkii meesha laga saaray. aniga waagii horaan u sheegay, sanad ka hora waxaan sheegay ninkan ujeedadiisa u badan waxaa waaye in sharciga status howdarka oo forage meesha laga saara, in dadka ajnabiga baasboorka qaadanaya meesha laga saara, in la yareeya dadka qaxootiga soo galayaan, iyo ancetra. marka walaalaha dhammaan videogan video ku xigo ayaa waxaan kugula wadaagi doonaa insha allah waxyaalaha cusuboo la bedelay iyo khatarta ay hadda ay leedahay wadanka Holland, iyadoona ninkan odaga mar kastaba uu Trump yara u bixiye, Trump iyo wadanka Jarmalka unbuu waraysiyihiis ku saleysay, sidaas yeeleen, sidaas waa inaan yeelno. marka walaalaha dhammaan waxaan idinkaga tegay insha allah kilibka dambe la soco haddii allah awoodda leh uu yiraahdo.